maanta waxaan ugu talagalnay ka xisbi ahaan iyo ka olol ahaan in aan ka hadalno xaaladda dalku maanta marayo ee xagga arrimaha doorashooyinka bulshada Soomaaliyeed ayaan rabnaa dareenkaas in aan la wadaagno ama aragteen aan la wadaagno dalka Soomaaliya waa ogsoontihiin dawladdii la doortay 2017 bishii February 8 waajibaad fara badan ayaa hor yeelay oo laga rabay inay meel mariso amba ha noqdaan xagga arrimaha amniga amba ha noqdaan xagga arrimaha dhaqaalaha amba ha noqdaan xagga dhameystirka arrimaha dastuurka iyo dalka isku hayntiisa iyo amba arrin kale oo madaxweynuhu ka dhawaajin jiray oo ay ahayd inuu noqon doono oday Soomaaliyeed oo wax isku hayo ugu dambeyn oo maxsuum maslaxo ugu dambeyn in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah arrimahaas hadda wixii kale oo idil waa laga yimid ama wixii kale oo idil waa lagu guul daraystay laakiin hadda waxa ay joogtaa arrintii ugu dambeysay ee ahayd in doorashooyin la aqbali karo dalka ay ka dhacaan xor iyo xalaal ah si wanaagsan ku dhacdo dalka ka wada dhacdo arrimahaas ayaa ugu dambeeyay arrimahaas ayaan rabnaa dalka maanta meesha uu marayo dawladdu waxay go'aansatay in iyadoo maamuladii qaar ay maqan yihiin sidii Jubbaland iyo Puntland oo aan laga heshiinin in ay dawladdu tiraahdo doorashooyinka waan ku dhaqaaqaynaa arrinkaas waa ka aragti gadisanahay arrinkaas waxaan u aragnaa qaladkii shalayta villa Soomaaliya ay sameysay waxaa ku maqan Somaliland baa ku maqan qaladka villa Soomaaliya maanta ay u heelan tahay oo ah in doorashooyinkii aan deegaanada qaar laga tixgelin waxaan ka baqaynaa in dalka uu ku kala daato ama uu ku kala go'o dawladdu waxay tixgelin leedahay deegaano waaweyn anagu waxaan qabnaa deegaan weyn iska daayay tuulo Soomaaliyeed haddii ay wax diidan tahay tuulada Soomaaliyeed in lala tashado loo tago la qanciyo waa dad Soomaaliyeed xumaan ma rabaan wanaag bay rabaan wax bay tabanayaan in la tixgeliyaan qabnaa laakiin dawladda hadda waxa muuqato inay doonayso inay iskaga tagto saddex calaamadood oo doorashooyinka ku aadan oo aan la aqbali karin ayaa meesha ka muuqdo dawladdu waa mid koobaad doorashooyin aan loo dhameyn inay qabatay ay sheegtay inay ku dhaqaaqayso oo ay ka maqan yihiin maamulada qaar ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Soomaaliya Puntland ay ka maqan yihiin wax wanaagsan ma ahan dawladda waxa muuqato inay u heelan tahay doorashooyin xor iyo xalaal aan ku dhicin oo meelihii doorasho ka dhici tagtaba si dhaqan ku ahaa ay ciidan ku daabulayso ciidamadan aan looga jeedin lagu waardiyay codbixinta iyo ammaanka laakiin si ay ahaan jirtay codka lagu soo dhaco dadka markaasi diidan xari kaliya aan loogu sino mararka qaarkood xinjirtooda la daadiyo ama la dilo midda ugu dambeysana waxa ay tahay doorashooyinka waa gudagalaynaa bay yiraahdeen laakiin inaanay doonayn inay doorashooyinka ku soo afjaraan xileedkii madaxweynaha hadda xilkiisa uu sii dhamaanayo oo ku eg 7 bisha February 8 xafiiska Soomaaliya madaxtooyada waa in uu galo madaxweyne haysto mandate cusub oo maaragtay la doortay ayaa laga rabay dawladda waxa muuqato marka waa bilaabaynaa laakiin waa sii jiideynaa inay tahay mar waa dalkii oo laga kala tago marna waa dadkii oo la boobo marna waa muddadii oo la sii jiido saddexda meesha ay dawladdu ka sameynayso anagu waxaan qabnaa saddex kale in loo baahan yahay doorashooyin loo dhan yahay oo deegaanada iska dhaafay tuulooyinka Soomaaliya mid wax qabtay in laga qanciyo ay tahay Soomaaliya Puntland kama dhamin Jubbaland kama dhamin Koonfur Galbeed kama dhamin Hirshabelle kama dhamin meel aan ka dhannahay Galmudug kama dhamin maxaan ku yiraahdaa meel aan ka dhannahay oo dalka Soomaaliya aan u baahnayn ma jirto qaybahaas qaybtii wax tabanayso dawladdu inay la garraqsato amba waa la diiday waa dhaqaaqnay amba waa daaheen ay tiraahdo arrin ku haboon ma ahan waxaan qabnaa marka doorashooyin dadka dhan ay u dhan yihiin waa qodobka koobaad qodobka labaad doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ciidan ku shaqo lahayn oo aan la boobayn guddi la isku waafaqsan yahay loo diro guddigaas la isku waafaqsan yahay inuu noqdo criteria ay taa waxa lagu xulayo qof hebel la diiday qof hebel la rabaa aan ahayn intaas ka bacdina doorashada muddadeeda ay ku dhacdo saddexdaa ayaan rabnaa intaas waxaa si dhinac socdo hal arrin oo muhiim ah arrimaha la isku waafajin kara ayaa jirta haddii dawladda laga helo oo ay la timaado niyad wanaag arrinkaasi waxa uu yahay in la isugu yimaado shir ballaaran oo looga arrinsanayo arrimaha iyaga ah dawladdu bariyahan dambe way iska weyneysay inay dadka arrimaha wax kale ay samayso iyadoo fiirinaysa iyo jeeraale waxay aragnimada u soo martay oo ahaa markay doonto inay qoriga isticmaali karto waxaan leenahay waxaan u taaganahay doorashooyin nabad ku dhaco waxaan u taaganahay Soomaaliya inay nabad ahaato geedi isla socdo la isku wada waafaqsan yahay aan daldalool lahayn taabaan mowqifkeenu yahay
waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno dowladda Soomaaliya xilalkii hore xaaladii hore idil markay ka guul darnaysteen mid ugu dambeysay inay doonayso inay guul darro ku dhameyso anagu waxaan diyaar u nahay inaan dowladda aragtideena u gudbino inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno inaan saaxiibada Soomaaliya la wadaagno doorashooyin xor iyo xalaal xilligoodii ku dhaco loo wada dhan yahay ayaan xiisaynaynaa doorashooyin lagu kala maqan yahay la boobo waqtigana laga daahiyo ma aan taageersanin waxa lagu xallin karaa wixii noo socon waaya ma naga daaho inaan isu nimaado oo la wada hadlo oo cidna laga tagin cid kastana ay doorasho ay kamid qayb ka tahay la qabto aad iyo aad u mahadsantihiin musharaxiinta waxaa lagu gudbaa inay maya yiraahdeen ma doonayno ubadkeenu inuu ku noolaado dowlad xuduudeeda ay tahay koonfurta gaalkacyo iyo mudul baraawe waxaan doonaynaa dowlad xuduudeedu ay tahay jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 60kii gobonimada qaadatay iyo labada gobol ee isu tagay dowladda amba madaxweynaha waxaa laga rabaa isku haaye iyo isu keene inuu noqdo kala dire inuu noqdo lama rabo kala diranimadaas baan diidanahay maanta haddii Puntland la diro oo laga tashado oo Jubbaland la diro oo laga tashado birita kale banaadir baa laga tashan rabaa waxaan rabnaa ubadkeena dowladda anagu aan ku dhalanay inay dhaxlaan ma doonayno maalinba cad in la tuuro oo cadba laga soo tago waxaan la gudban marka inaan arrinka ka shaqeyno xalayna waan isu tagnay waana ka shirnay murashaxiinta kale maahana bulshada Soomaaliyeed waa isku fiicantiin kala ma fiicnidin kala ma dhamidiin waa isu wada baahan tihiin dalkiina inuu hal ahaado ayaa doonaysaan qaladka bila Soomaaliya ay sameynayso qaybo ay ka tagayso amba boobka doorashada isu diyaarinayso arrimaha in laga hor istaagaa rabaa dowladda lagala hadlo wala murashaxiinta iyo bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda kale ay iska kaashataan loo baahan yahay dowladdu waxay musharaxiinta waxay u eedeynayaan in laga dalbado inay soo gudbiyo doorashooyinka dadka wax ka tabanayaan si looga badbaadiyo min adeer arrinkaasi waa mas'uuliyad xumi mukhaabaraad ayaa ku jiraan ma waxaana la ka doonayaa mukhaabaraadka Soomaaliya ee shaqada dhibka badan hayay ee gobolada cadow ka taliya joogeen oo magaalada wax ka wadeen oo raggaas ay isku xirnaayeen inaan magacyadooda intaan gudbino liiskaas aan gudbino oo aan amba meediyaha ka sheegno ama meelaha ku faafino oo dhalinyarada rag iyo dumarka ah aan cadowga u loogno biyaan la ka doonayaa dowladdu waxay bixiso waa ogtahay dadkay gelisana way ogtahay wiilashayna ma rabno nafsadooda inaan khatar gelino marka ay ka bixinayso shaqaalaha dowladda iyo dadka iyo baraha bulshada ka taageero dadka mukhaabaraadkana ku dhex darto mas'uuliyad xumi waay meeshaana lagama sheegi karo meelkan lagama sheegi karo liiska waa in la saxo ay dowladdu saxo maalintii shalay sidoo kale adigu waxaa ka qayb gashay kulan ra'iisul wasaaraha hadlaya iyadoo sidoo kale laga dhawaajiyay xilligan doorasho loo dareeray muxuu ahaa kulankaas maxaasa uga wada hadashay kulanka wuxuu ahaa ra'iisul wasaaruhu mar hore ayaan martiqaad ka helay inaan kulanno runtiina ra'iisul wasaarihii Soomaaliya waa un asaga qof kale ma ahan mas'uul Soomaaliyeed oo yeertay iyo maadiyada ayuu ahaa arrinkaan ka jawaabayay arrinka anigoo ka jawaabaya waxaa soo dhex gashay arrintii doorashooyinkii waan ku dhawaaqaynaa oo runtii aad iyo aad ila guracneyd ila qaldanayd bulshada inteeda badan iyo siyaasiyiintana la wada qaldan arrinka marka haddii ay timaado waxaan go'aansaday inaan kulankii baajin ra'iisul wasaarahana aan u sheego aragtida caafimaadka qabto ee doorashooyin lagu qaban karo la wadaago xalaytana waan ka dhawaajiyey runtii aad iyo aad aan u kala aragti gadisnayn laakiin taasi ma aanay diidaynin in aan kulanno inaan aragtida u gudbiyo inaan u sheego inaanan Jubbaland ka dhamayn inaanan Puntland ka dhamayn inaan dalka isla socodkiisa aan rabno in dalka waxa deeqa ay tahay nabad inaan arrimaha aan u gudbiyo asaga kaliya ma aan cid kasta Soomaaliya oo aan isleeyahay arrinkan wax uu shaqo ku yeelan karaa ayaan diyaar u ah inaan la kulmo ha noqdo qof wasiir ah ha noqdo madaxweynaha ha noqdo maamul goboleed cid kasta oo Soomaaliya oo wax ka noqon karto ama ka qayb qaadan karto dalka Soomaaliya marxaladan kala guurka ah si nabad ah oo cadaalad ah oo isla socod ah inay ka qayb qaadato ayaan diyaar u nahay inaan la kulanno sideedana siyaasiga waxaa la rabaa waxa aanu xaq u lahayn inuu iska daayo siyaasiga wuxuusan xaq u lahayn waxyaabaha loogu talagalay in looga xanaajiyo markay dhacaan inuu xanaaqo ah
annaga shalayta wax aad iyo aad u qaldan oon dalka u fiicnayn oo dadka u fiicnayn ayay dowladdu ku dhawaaqday kuna dhaqaaqday laakiin waxaan aqaynaa xalkaan geynaynaa meesha qaladka laga sheegay xal baan geynaynaa haddii madaxweynaha qaladka uu ka yimaado saxdaan u sheegaynaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda hadduu ka yimaado saxdaan u sheegaynaa maamul goboleed hadduu ka yimaado saxdaan u sheegaynaa waayo kani waa dalkeeni dal kale ma lihin waa maslaxadeeni maslaxad kale ma lihin qaran toosan baana deeqo qarankiisa uu ku toosaayay baan kala hadlaynaa arrinka marka sidaas bay ahayd dabcan waan qadarinaynaa cid kastoo soomaaliya arrimahaas ay suuragal u tahay inay ka qayb qaadato xataa daayarta inay ka qayb qaadataa la rabaa dowlad idiima noqon karto soomaaliya dowlad mudul baraaw iyo koonfurta gaalka inta u dhexaysa dowlad ka ah oo doorashada ku qaban karto sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay dowladdeena inaan ceshano aan idhahdo annagoo isla soconaa noo timaadeen gaariga waa la wada saarnaa puntland iyo jubbaland iyo maamulada dhan way isdhinac fadhiyeen habeenkii doorashada ay dhacaysay ha ka dejinin gaariga qaar madaxweynaha saasaa leenahay gaariga waa inay saarnaadaan haddii aadan isku wadi karin walaalow raalli ahaa dad isku wadi jiray baa jira dad isku wadi karaa jira waan u heelana kalama dhamin qaar qalloocan oo aad naga reebto iyo qaar quban oo aad noo wado ma kale nihina qaran hal ah oo isu baahan baan ah warar waxaa sheegaya in musharaxiinta la kulmayaan madaxweynaasha dowlad goboleed galmudug shabeelle ku kulmayaan marka wararkaasi maxaad u sheegi kartaa annaga xalayta go-aankeenu waa ahaa inaan la kulano iyaga kaliya ma ahan cid kastaan la kulmaynaa wax baan u sheegaynaa fariin nabadeed baan sidnaa fariin waayo arag baan sidnaa waxaan diidanaha dalkeena in la kala jarjaro waxaan diidanaha dadkeena inay kala irdhoobaan villa soomaaliya qaladkii hore inay ku celisaan diidana meeshaas waa ku celina villa soomaaliya qalad ka dhacay hargeysaa ku maqan somaliland baa ku maqan meelo kale inay ku maqnaadaan ma rabo maslaxad baan ku dhex wadaynaa doorka aan leenahay waa kaas laakiin dowladdu waxay ujeedaa doorasha hadday dhacdo xor iyo xalaala ama madaxweynaha xafiiska uu joogo u waayaan madaxweynaha waxaa ka qaalisan qaranka isla socodkiisa